marka ducana ta ugu fadli badan buu nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam waa inaad tirahdid alxamdulilaahi rabbil caalamiin maanta innaka su'aasheena badan baahideena badan waxa dadku inta badan ay eegaan inta nicmada ka maqan bay eegaan inta nicmada ay haystaan ma eegaan nicmada araga nicmada maqalka nicmada caafimaadka nicmada insaaniyada nicmada arsaaqada wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha haddii nicamta ilaahay nagu galladeysay haddaad tirisaan baa ilaahay leema soo koobi karaysaan ilaahay bay noo nicmeeyey marka ducana ta ugu fadli badan buu nabigu yiri waa maxay waa inaad tiraadid mar walba alxamdulillaah ala nicmata aliimaani waalislaam waliba nicmada ugu weyn ilaahay jalla wacala uu nasiyey waa nicmada islaamnimada weeyaan dad badan oo maanta muslimiina nicmada ma qadariyaan nicmata alislaam haddaan garan lahayn oon hoos u eegeyn lahayn iyadaa nicmo inoogu filan mithqaala darra min iimaan qofka qalbigiisa mithqaala darra min iimaan oo khayra ama iimaana uu qalbigiisa ku jiray adduunyada ka taga buu nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam ilaahay jannada waxa uu ka siiyaa jaga leeg adduunyada 10 leeg baa jannada ilaahay ka siiyaa muusa calayhi salaam ilaahay waa kii baryay yiri kelmada kugu baryaysii markaas ilaahay ku yiri ya muusa waxa tiraahdaa la ilaaha illa allah dheh markaas yiri ya rabbi adoomahaaga wanaagsan kelmadan way yiraahdaane tuga aniga ii gaaraysi oo kugu baryo markaas ilaahay yiri ya muusa todobada ciriga todobada dhul hadii la qaado miisaanka ka fadla saaro kelmadana ka fadla kala la saaro kelmadaba ka culus ba ilaahay ku yiri xadiis saxiixa nabigu calayhi salaatu wasalaam waa kiilaha maalinka qiyaamaha nin ummadayda kamida ayaa ilaahay banka qiyaamo kala soo dhex bixi doona waa laga soo dhex soocan doona markaas la hor dhigi doona 99 diiwaan oo midkii la furo buu nabigu uu leeyahay ilka aragtay oo dunuubiya macaasi ay ku wada qoran tahay markaas uu adoonku yaabaya markaas ilaahay ku oran doona malaa'igtaydii amalka soo qoraysay may kugu xadgudubtay markaas uu leeyahay may igu may xadgudbina waxa meesha ku qoran oo dhan aniga geystay afalaka udhrun hadana wax udurdaar ma sheeganaysa markaas uu leeyahay maya bala inna laka indana hasanatan la dhulma alayka al-yawma uhdhur waznaka agtayada hal hasana ayad soo dhigatay oo ku taale halkan meeshan cidna lagu ma dulmiyo waa maxkamad weeyaan ilaaha caadilka ayaa ka taliya ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل آتينا بها وكفى بنا حاسبين مثقال ذر إلا إيقو خيرا أما أو شر أنك مالنتا بنك قيامة إساقو وتتقى لقد ظلمين ما يبا إلهي لقو حد قد بماي وحولتك يبا لقى أبا المرين دونا وأي إله عادلة مالنتا كتلين يا محكمة داس مد لالوش قادنا يا mid laaluush la siinaya mid shafaacad ma aragtaan ilaahay noo ergey marka la oranaya meeshu ma taagna waxay taagan tahay waa maxkamad ilaaha caadilka ayaa kala saaraya khalqigiisa nin walba amalkiisa marka hore lagu dhaqaajinaya dadna ilaahay tabaaraka wa taala shafaacada anbiya malaa'ikta iyo shafaacada anbiyada iyo shafaacada culimada kadib ayaa la bilaabi doona markaas ilaahay oran doona agtayada hal xasana ayaad soo dhigato ku taale orado halka amalka lagu miisaama tag baa lagu oran doona waxa la soo saaray buu nabigu calayhi salaatu wasalaam bitaqad warqad yar oo ay ku qoran tahay shahaadati an la ilaha illa allah shahaadati an la ilaha illa allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu dadna markaas la qaadi markaas uu leeyahay maxay intee kaga dhacaysa kelmadan warqadan yari 99 register oo midkii la furaba uu leeyahay ilka aragtay maxay ka gaadhaysaa markaas la oranayna uhdhur waznaka halka amalka lagu miisaama adigu iska tag markaas la keeni doona 99 kii register xaqan ayaa la saari doona kelmadii tawxiidka qalbigiisa ku jirto la yimidayna kafada kala loo saari buu nabigu yiri fala yadkhulu ma'a ismi illahi shay ilaahay magaciisa wax ka cuslaanaya ma jirto buu rasuulku yiri كلمة طيبة تد مسلمين وشهادنيا ولبا دينتي دنينيا ومساجدي عمريا ودينتي برانيا ودينتي دغيسنيا ودينتي كهلايا ايا الهي نغا دغاي كم نعمه قدر كيغا ما بغران كرنا ما انت انكو
dadka ahla dunyuhu adduunyadooda qadarkeega way gartaan magaaladan aad ku nooshaan lacag suuqa lama maro waa sugnahay dahabkana warkiisaba iska daaba sida dahabka iyo lacagta qiimaheega loo gartay ee loo ilaalinayo ayaa loo baahan yahay diinta islaamka in qiimaheega qadarkeega intoo la garto in loo ilaaliyo ma qadaru llaha xaqa qadrihi ilaahay cadamadiisii macrifadiisii cibaadadiisii uu xaqay nooga lahaa umaanu caabudin umaanu garan markaasaa ilaahay ludfigiisa iyo karamkiisa iyo dulqaadkiisa ilaahay nagula tacaamulaya wa ilaa acmaal aan mutaysanay inaan arlada dusheeda aan ku joogno ma hayna maanta laakiin raxmadiisaan ku joognaa dulqaadkiisaan ku joognaa ludfigiisa ayaan ku joognaa asturkiisa ayaan ku joognaa yaa man adhara aljamiil wasatara calaya alqabiix waa munaajaadkii nabigeena moxamed calayhi salaatu wasalaam rabbigii markuu la munaajoonay uu ku ducaysan jiray yaa man adhara aljamiil wasatara alqabiix ilaaha quruxdaydii sifaadkaygi wan wanaagsanaa intii wanaagsanayd ii muujiyey ee intii ceebtayda igu ogaana ii qariyayow allahaasaa mahadla buu nabigeenu ku ducaysanaya habeenka markuu ilahay la munaajoonayo nicmadda inta aan haysanaa la rabaa inaan eegno inta naga maqan ha eegin inta kaa maqan ha eegin dadka maanta muslimiintu intooda badan waxay eegaan nicmadda inta ka maqan bay eegaan yu'taa yowma alqiyaamati يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيسبق صبغة في النار ثم يقال هل رأيت خيرا قط هل مر بك نعيم قط dadkii adduunyada soo maray min maalinkii adduunyada la abuuray ilaa saacadda qiyaamadu ay dhacayso kii ugu nicmo badnaa ee ugu barwaaqo badnaa ayaa banka qiyaamo la keeni buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam laakiin isagoo ahlu naar ayaa la keeni doonaa oo naar loo sii wado hal mar keliya intoo la soo qaado ayaa naarta la gelin doonaa naartaa la gelin waa laga soo celin doonaa markaasaa la weydiin doonaa oo la oran doonaa weligaa adduunyada intaad ku nooleed barwaaqo iyo nicmad ma ku soo martay intuu ilaahay ku dhaarta buu leeyahay weligay nicmad iyo barwaaqo haba yaraatay aan umaba arag buu leeyahay waa keena dadkii adduunyada soo maray waa kii ugu nicmo badnaa ee ugu barwaaqo badnaa hal mar oo jahannamo la geliyo laga soo celiyey ayuu nicmadii oo dhan ku halmaamay mar keliya nicmadda adduunyadan dul taalla ee dadku maanta nicmad ay moodayaan ee markii nicmad la hadal qaadaba kombyuutarkeenna ay ka soo baxayso adduunyadu maanta nicmad markaan hadal qaadno waxa maskaxdeenna markaaba kusoo degdegaysa aqal weyn iyo gaadhi weyn iyo lacag weyn iyo darajad weyn iyo reer weyn iyo islaam weyn baa qalbigeena kusoo degdegaysa nicma salaada jamacaad ku tukatay baa nicmada hadalka ilaahay le noo sakhiray ku hadlayna baa nicmada maqalkaagii aad u sakhirtay ilaahay diintiisa inaad maqasho baa nicmada sujuudaad sujuudaysid baa nicmada carabkaad ilaahay kaga shukrinaysid baa nicmada gacantaadaas aad isticmaalaysid baa nicmada nabiyullaahi ciisa calayhi salaam ayaa arkay nin labadaa gacmood halkaa ku go-an labada lugoodna halkaa ku go-an indhalo oo weliba aan waxbana arkaynin barasloo jirhkiisu cad yahay oo leh ilaaha waxaan ku mahadiyaa balaayo badan oo addoomihiisa ku dhacday ilaaha iga ilaaliyey baan ku mahadiyaa buu ku ducaysanayaa markaasuu nebi ciise calayhi salaam ku yidhi balaayada adiga kaa maqaneed ka alla baryaysaa maxay tahay adigan gacmihiina waad laadahay lugihii waad laadahay araggii waad laadahay midabkaagii waa doorsoonyaho waa baras baad leedahay waa maxay nicmadda adiga dhibaatada dadka kale ku dhacday ee balaayada ummadda kale lagu riday ee adiga ilaahay kaa ilaaliyey waa balaayadee buu aad sheegaysid wuxuu yidhi aniga ilaahay jala wacala wuxuu i siiyey qalban shaakiran wa lisaanan daakiran qalbi waxa ilaahay igu deeqay mar walba ilaahay aan ku xasuustoon ku haya cadamadiisa iyo maxabadiisa iyo jacayladiisa iyo carab waxa ilaahay i siiyey mar walba aan ku hayo dikrigiisa iyo taacadiisa miyaynan balaayo ahayn buu yidhi ilaahayna laga magan galo dadka ilaahay quluubtii intuu siiyey qalbigoogiina ilaahay ku garan la carabkiina ilaahay uu siiyey carabkoogiina ilaahay ku xusi laha
inagu maanta nicmad markaan maqalo waxa maskaxdeena markaaba ku soo degdegaysa adduunyada dhalaalkeega dadkii adduunyada soo maray kii ugu nicmad badnaa ee ugu barwaaqo badnaa laakiin maxay ugu taallaa ayaan daro wuxuu ka baxay adduunyada isagoon ilaahay rasuulkiisa garanayn laa yagurannaka taqallubu aladiina kafaruu fi lbilaad mataacun qaliil uma ma'waahum jahannam wabi'sa almihaad ilaahay baa qur-aanka inoogu sheegay weligoodba gaaladan arladan ay kolba dhinac u gagadoomayaan ee kolba waxay technology ay soo saarayaan ha ku degin baa nebiga lagu yidhi ha ku degmin waxaan doonaynaa baa ilaahay yidhi waxaan darhum yaakuluu wayatamatacuu wayulhihim alamalu fasawfa yaclamuun baa ilaahay yidhi ha cunaan ha ciyaaraan ha iska tuntaan iska dhaaf baa nebiga lagu yidhi gadaal dambayse ogaan doonaana baa ilaahay yidhi mataacun qaliil in yar weeyaan raaxada adduunyadu hadday haystaanna in yar bay haystaan uma ma'waahum jahannam halkay ku hooyanayaani waa jahannam baa ilaahay yidhi walciyaadu billaah kii adduunyada ugu barwaaqo badan buu ahaa ugu nicmo badan laakiin adduunyada waxa uu ka baxay isagoon ilaahay rasuulkiisa aanan garanayn isagoon allihii abuuray xidhiidh la yeelan daarta loogu talagalay loo noqonayana aanan u sahay qaadan nebigii la soo diray calayhi salaatu wasalaam ee bashariyadda caalamkao dhan la yidhi way indhalaayihiin waxba ma arkayaan adigaa indhaqabee bini aadanka soo badbaadi la yidhina noloshiisii iyo dhaqankiisii buu u arkay dib u socodnimo afaman yamshi mukiban calaa wajhihi ahadaa aman yamshi sawiyan calaa siraatin mustaqiim baa ilaahay yidhi ilaahay rasuulkiisa ninka raaca waa ninka caadiga labada lugood ee caadiga ku socda weeyaan ilaahay rasuulkiisa ninka yidhi ma raacayo diintay la yimaadeen iyo shareecadoodana qaadan maayo amarka ilaahay qaadan maayo nebi maxamed dariiqadiisii mari maayo dhaqankii nebi maxamedna dhaqan ka dhigan maayo ninka yidhi waa nin yidhi madaxaan ku soconayaa madax ku socda weligii meel ma gaadho adduunyada dadka soo maray buu ahaa kii ugu nicmo badan ee ugu barwaaqo badnaa hal mar keliyo naarta la geliyey buu nicmadda adduunyado dhan ku halmaamay wayutaa biashaddi الnaasi buusan fi اdunya min ahli اljanna wayutaa biashaddi الnaasi buusan fi اdunya min ahli اljanna fayusbaqu sabqaة fi اljanna fayuqaalu laka hal mara bika shidaة qad hal mara bika bu's qad فيقول لا والله يا ربي أو كما قال عليه الصلاة والسلام حديث معني سوها ذاتك الدنيا الصومري كي أقول لبعض هذا بدنا أقول مشاكل كبدنا كاسا بنك قيام الله كان ابو نبي وريسوغو لكن جنة الله سيوضع أهل الجنة هل مركلية جنة الله تسن أما اللي قلين يسبق والله قلين مركلية الله قصوا قبن markaasaa la odhan doona weligaa ya allaha intaad adduunyada ku noolayd wax dhibaato ah wax mashaakil ah wax masiibo ah ma la kulantay intuu ilaahay ku dhaarta buu odhanayaa may weligay dhibaato maba arag buu leeyahay waana kee waa dadkii adduunyada soo maray kii ugu dhibaatada badnaa kay xaggiisa faaqada iyo dhibta iyo mashaakilku iyo faqrigu uu ku badnaa weeyaan ee dadka ugu nolol liitay xagga nolosha maadiga marka laga hadlo daahirka sidaasuu ka ahaa laakiin gudaha uu ka raaxaysanayay daahirka la noloshu midna waa mid daahirka ku tacalluqda maadada midna waa mid gudaha gaalada ilaahay markuu nebigu yidhi addunya sijnu lmu'min wa jannatu lkaafir marka uu nebigu yidhi gaaladu janno kuma jiraan jannada uu nebigu sheegay waxa weeyaan shahawaadkoogii adduunyada inay ku gudanayaan weeyaan waxba ka xaaraan maaha iyaga waxay rabaan bay cunayaan waxay rabaan bay cabbayaan siday rabaan bay u soconayaan waxay rabaan bay daawanayaan meeshay rabaan bay marayaan waxay rabaan bay fuulayaan waxay rabaan bay ku hadlayaan waayo iyaka maaragtaan xalaal iyo xaaraantu qofka muslimka loo soo dejiyey shareecadaas qofku markuu ashahaato ee uu islaamnimada soo galo ayay xalaashii xaaraantu qabanaysaa marba hadduu gaal yahay uu ilaahay garanayn uu rasuulkiisii garanayn
وشريعتي دينته آمن سنين شهوتي سي الدنيا نكو جدنا يا يسوع مركا جنة سي وهالكن مالين تو دنتنا جنة سي وكب حياة جهنم الله قاضي يا يسوع مركا ظاهر كو كرر حيسنا يا ظاهر كا أقل وناكسن قاري وناكسن قر قبر قروح بدن در قروح بدن ودن قروح بدن نولل ظاهر كا قروح بدن لكن قدها ويك أويان أما مسلم كمية مسلم كو ظاهر كهدي حتى ونولشي سكتو سنين ودلقي صبر برسانية هاي وأباره كو بديهين وعلاده كو بدنتهاي وفقره كو بديهاي وبكتانته كو بدنتهاي والرفات كو بديهاينا قفو مسلم كو قدوه كرا حيسنا يا تلقصان إني شيء نمن عدانا أضل حيستيالا حب بيمريان مال حبه حبتي waxay ugu tageen nin muslim oo dhalinyaro ah oo xabta iska jiifa badda dhinaceega iska jiifa way kiciyeen waxay ku yiraahdeen meeshan maxaa ku dhigay wuxuu yiri waxaan ahay kalluumaysto baddan ka kalluumaysanaya oo khaydkii baa badda iigu jiro halkana waan ku xidha lugtayda marka kalluunku marka uu galo khaydkaasi dadna waan lugtayda dhaqaaqi waan kici waan soo saaran waan iska karsadaa dhowr xabadoodna waan qaataa reerkaygaan u geeyaa buu ka yidhi way ka naxeen markaas lacag bay iska soo ururiyeen lacagtii bay u dhiibeen lacag aad u fara badan wuxuu yidhi maxaan ka dhigaa waa qiso mathal yani waxay ku yidhahdeen lacagtan waxaad ku iibsataa shabag fahmaysaan baan u malayn shabagaabaad badweynta ku tuuran halkaad 2 iyo 3 maalintii aad qabanayseen 20 baad qaban markaas uu kadibna waxay yiraahdeen in muddo asada u shaqee lacagta yar ururso doon yar baad marka dambe iibsan doontaa engine yar baad motor yar bay leedahay badweyntaad ku dhaadhici doontaa halka maalintii 20 aad soo qabanaysay 100 kalluun baad soo qaban ilaa 200 xabadood markaas uu ku yiri kadibna markaas sayidada in muddo asada u shaqeey magaalada halkan suuqa khudaarta iyo hilibka lagu iibiyaad meel ka furanaysaa halkaas aad markaa ku iibinaysaa dadkoo dhan baa ku baranaya nin caamad wadanka ka noqonaysa kalluunka lagu yaqaano hebel kalluun laba lagu oran markaas hebelkii kalluunka iibin jiray markaas uu kadibna dhowr sano sida u shaqeey hay lacagta ururi banka dhig kadibna laashkan dheereeyo ee badweynta u dhaadhaca ayaad iibsanaysaa fadeed annagu xageega fadeed baan idhaana Djibouti fadeed kaabad iibsanaysaa baddaad ku dhaadhacaysaa dadna waxaad soo qabanaysaa dhowr kun xabadood baad soo qabanaysaa maalintii iyo waliba khayraad badan oo badda ku jira markaas uu kadibna gobolada wadanka oo dhan baad ka fureynaysaa marka branch meelo ma aragtaanay aad ku iibisad kalluunka wadanka dhanba kalluunka adiga siinaya markaas uu kadibna muddo sida uu shaqay haddana 5 sano 6 sano lacagta ururi waxaad iibsanaysaa marka dambe warshadii saaradiinka sameeynaysay markaas uu kadibna warshadaas marka way shaqeynaysaa adduunka u kala daraysaa markaas uu kadibna قصر وين وفيلايات دسانو سفي عم بدو سيحن بي كيدادين وحول هذا مركا ديتي ما ديما هرديقا كعسين أقول وحول ما هردون بانين تاو مرابول سونيقي هردين ما إيمي كذن وحان كودا معنى اسكو أركتين منهن نولوشان ظاهر كماها نولوشان مسلمكو ابن تيمية رحمه الله يقول إن لله جنة في الدنيا الدنيا دشيد إلهي جنو كلها نيك جنة الدنيا آنن قلنا جنة آخر ما قالوا جنة الدنيا ومحي وحياة الإيمان والأعمال إنه قف كل نقضه قف قلبي يس إلهي مرول بأكوها يحسك إلهي وقدرك آمن سن راحوا ما هنولش الظاهر كوكوها قاكت تن ما أنت الدنيا ذاتكم مصيبة ويقاننا مصيبة ما الدنيا ذا مصايب ويجرتا لكن مصايب تآخرة مصيبة الدنيا ذا جرتا
masiibada ugu weyn waa dhimashada. bal wax ka weyn sheeg. masiibo way jirtaa adduunyada, masaa'ibtu way badan tahay. abaartu waa masiibo, bugtaantu waa masiibo, ilmahaagii oo kaa dhintay waa masiibo, islaanta oo kaa xanuunsata waa masiibo, ganacsiga tijaaradii oo kaa baabada waa masiibo. hatta ardayga jaamacadaha dhiganaya hadduu imtixaanka waaye masiibo u arkaa. laakiin masaa'ibta adduunyada inagu helaysa, masiibada ugu weyn waxa weeyaan waa geeri weeyaan, waa adduunka markay noqoto. laakiin aakhire markii la joogo, masaa'ibta aakhirada jirta masiibada ugu yar waxay noqon doontaa dhimashada. ahla naarka walciyaadu billaah markay naarta ay galaan, qur-aanka ilaahay noogu sheegay, wanaadow yaa maaliku liyaqdi calayna rabbuk qaala inakum maakithuun. 40 sannadood ayay ahla naarku naarta ka dhex dhawaaqayaan ay leeyihiin, yaa maalik, waa malaga furaha naaraha haya bay ku leeyihiin, rabbigaa waxaad noo weydiisaa inuu nafta naga jaro bas, haska dhimanaba. maxay dhimasho u tamaninayaan? bal ii sheeg. dhibaatada ku haysata ee kale ayaa ka weyn dhimashada. marka adduunyada markii la joogo, masaa'ibtan adduunyada maanta dadku ay masiibo moodayaan, ta ugu weyn waa dhimashada weeyaan. aakhire markii la tegana, masaa'ibta aakhire masiibada ugu yar waxay noqon doontaa waa dhimashada weeyaan. saa darteed adduunyadu way nagu weynaan agteenna, waxaa la rabaa inay nala weynaato diinta islaamku. muslim aakhiradu waa inay nagu weynaato. waa la dhimanayaa, dhimashada waxaa ka dambeeya ha kula weynaadaan. qabri baa ku sugaya, qiyaama ku sugaya, janniya naar baa dambaysa, ilaahay baa lagu hor joojin doonaa. noloshaadii adduunyada 100kii sane lagu siiyey, 60kii sane adduunyada lagugu deeqay, 50kii sane adduunyada lagu siiyey, waxaad ku soo qabatay baa lagu weydiin doonaa, daqiiqad baa lagu weydiin doonaa. cataa as-sulaymi raximahullah ayaa nin taabiciya buu ahaayo aad u murug badan, salafu saalix. waxaa lagu yidhi, yaa sheekh, murugtaadani aad bay waad murug badan tahee, dadka maxaad dheer tahay baa lagu yidhi. waa ninka la yidhi 30 sano isagoo qoslayna lama arag, 30 sanona samada ma eegin baa la yidhi. dhulka umusadaa u eega u soconayay. ninka meel u caddahay meel ka madow, dadkaasi aakhirada ku weyneed iyaka. markaasuu ku yidhi, almowtu fii cunuqi waalqiyaamatu mawqifi, almowtu fii cunuqi walqabru beyti waalqiyaamatu mawqifi wacala asiraati طariiqi walaa adri warabbii laa adri maa yasnacu bi buu yihi. warabbii laa adri maa yasnacu bi. wuxuu yidhi maxaanan u murugoonayn, maxaan la murugoonayn buu yidhi. geeridii baa qoorta ii suran, qabriguna waa aqalkaygii, qiyaamahana waa lay joojin doonaa. 40,000 oo sano buu yihi ibnu cabaas, wa fii yowmi kaana miqdaaruhu 50,000 sana. 40,000 oo sano buu yihi ibnu cabaas ayaa la joogi doonaa banka qiyaame. 10,000 oo sanana xisaabtaa ku dhammaani doonta. bal saacad halkaa joogso, maalin ma joogi karna meel. 40,000 oo sano ayaa sidaa loo taagnaa buri ibnu cabaas oo mufasirkii qur-aanka. wax ka hore, wax cideeda ka, wax kuleylka kaa hareynayaa ma jiro. meel la fadhiisanayaa ma leh, meel biyo laga cabayaa ma leh, geel la hadhsanayaa ma leh. yowma yafiru lmaru min akhiihi wa ummihi wa abiihi wa saaxibatihi wa baniihi likulli imri'in minhum yowmaydin sha'nun yuqniihi. waliba waa maalin baa ilahay yidhi, waa maalin, habeen lama sheegin. yowma yanduru lmaru maa qadamat yadaah yowma laa tamliku nafsun linafsin shay'a yowma tabyadu wujuuhun wa taswadu wujuuh yowma yanduru lmaru maa qadamat yadaah yowma yacadu الظaalimu calaa yadayhi yowmaydin tucraduuna laa takfى minkum khaafiya dalika yowm الtagaabun. qur-aankaa lagu sheegay waa yoom, waa maalin keliya, habeen male maalintaasi. waa maalintaas ay sugaysa buu yidhi. jidka siraadna waa dariiqan dul marayay, rabbigay marka la hor joojiyana waxaa kala kulmi ma aqaana buu yidhi.